munaasabad loogu duceynayay ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble ayna ka qayb galeen culimo waxgarad siyaasiyiin ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee dalka Norway. kulankan ayaa qaar ka mid ah dadkii ka hadlay waxa ay si weyn uga hadleen waxqabadkii Allah u naxariistay ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble waxayna u rajeeyeen inuu samir iyo iimaan ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed jannadii firdawsahana Ilaahay ka waraabiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed ayuu ka baxay. wuxuu ahaa ugaas maaragtay ugaasyadii Soomaaliyeed kuwooda ugu maaragtay amaanta badan. bini'aadankana wuxuu ku fiican yahay haddii bini'aadanku uu ku guuleysto barnaamijka ama howlaha ah islaax bayni naas waxyaabaha nabadda qofka islaamka ah ee nabadda ummadda u horseeda ee colaadda ka celiya ee u gargaara qofkaas ayaa ahaa ahlul khayrka. marka ummadda waxay aad u tilmaantaa inuu ahaa nin ahlu khayra nabadda ku weyn oo siyaasadda ka fog. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan tacsi tiiraanyo leh halkan uga soo jeedinayaa ehliyadii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ayaan halkan uga soo jeedinayaa ugaas Rooble ugaas Warfaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi ayaan halkan tacsi tiiraanyo mudan uga soo jeedinayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehliyadii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo beelaha reer Hiiraan guud ahaan oo si gaar ah u taabanayso ayaa runtii waxaan halkan uga soo jeedinayaa tacsi aniga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynagu bedelo awil khayr qaba isagana naxariistii janno Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka waraabiyo. hadda ugaaska Allah u naxariisto ugaas Cabdiraxmaan geeridiisii markaan maqalay maalintii uu dhintay waad ogeydeen adduunka oo dhan afarteeda koone tacsi laba filaana oo meel walba ayay ka dhacday. Soomaaliya oo dhan waa daawanayseen asoo ku jira hawshaas falka sida odayaashii ugu horeeyay u sheegeen ayuu hani qaaliyo ha umada Soomaaliyeed uu ka dhaxay. waxaa ka codsanayaa si rag ugu horeeyaan in meeshii nabad uu ka waday ay ka sii wadaan. dadka sharafta leh oo qaybaha bulshada ka kooban ugu horeeyaan salaadiintii aqoon-yahanada iyo bahda warbaahinta dhammaan waan uga mahad celinaynaa ajiibadayna ajiibeen waqtigooda qaaliya cimilada xun iyagoo la weynaaday barardiiqa ugaaska danahoodii gaar ah u soo dayeen waa u mahad celinayaa dhammaantood. waxaan ogaaday xaqiiqatan geeridii ugaas Cabdiraxmaan waxaan ku ogaaday ummadda Soomaaliyeed dadkooda qaaliga inuu u tirsan yahay. maxaa jira waxaan ogaaday shanta Soomaali meel ay joogtaba ugaasku marka uu dhintay meel walba shucuurtii ay ka muujiyeen. marka waxaan leenahay dadka wanaagsan intay nool yihiin aanu ka faa'iideysano. maxaa jira bini'aadamka naftooda lama siin waddankeennii iyo dalkii waad ogtiin dhibaatada haysata waxa kaliya oo dhibaatada ka saari kara dadka nool sidaad u ogtihiin waa la wada ogyahay tusaalooyinkooda hala qaato ee waxaan dhihi lahaa ugaas Cabdiraxmaan Allah u naxariisto. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Sarrasta Somali National TV magaalada Oslo.